ku soo dhawaada jaalayaal JTN aniguna waa Axmed Awge warbaahinta boqortooyada Maghrib ee Marookaanka iyo guud ahaan warbaahinta Carbeed ayaa labadii maalin ee la soo dhaafay si weyn u warfinaya muuqan oo hadalhayn xooggan dhaliyay kadib booqashadii gaabneed ee madaxweynaha dalka China uu ku tagay Morocco dharaaro ka hor una kula kulmay dhaxal sugaha boqortooyada Marookaanka wiilka da'da yar ee lagu magacaabo Amiir Xasanka saddexaad qodobkan dooda badan dhaliyay waa kolkii la soo dhaweynayay madaxweynaha China oo madasha soo dhaweynta la keenay timirta ka baxda dalkaasi si loogu soo riyay madaxweynaha martida ah laakiin madaxweynaha China ayaa durbadiiba la arkay isagoo ka cabsanaya dhadhaminta timirta kana istaagay oo hadalla ka keenay isagoo gacanta ku haya xabad timir ah hareerihiisana eegaya oo aan afki gelinin durbadiiba waxa cabsida madaxweynaha dareemay wiilka yar ee dhaxal sugaha Morocco ah oo dhinaciisa taagnaa kolkaas intuu dhaxal suguhu si halhaleela u laacay timirtii ayuu xabad qabsaday oo afka geliyay kadibna madaxweynaha China markuu arkay inuu dhaxal sugaha Morocco cunay timirta ayuu isaguna cunay si kalsooni leh warbaahinta Marookaanku qaarkood ayaa ku dhaleecaynaya muuqan boqortooyada oo ku sheegaya in ay tahay fashil iyo soo riixumo ama in aan laguba kalsoonaan karin boqortooyada Marookaanka qaar kalena waxay ku ammaanayaan dhaxal sugaha Morocco ee 22 jirka ah inuu sareeyo fahamkiisu sarana u qaaday meeqaamka dalkiisa oo madaxweynaha China uu tusay kalsooni iyo xasilooni taala Morocco adiga muuqan daawanaya maxay kula tahay ma sida ay u dhigayaan qolada hore ee dhaleecada ah mise sida ay qolada dambe u dhigayaan aragtidaada commentiga noogu reeb mahadsanid